السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالقة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابي في الله ما أنت وحن جعلستي إنا لو ذاقه لبك المذود فائدة له غير نكتيرو أن جعلست ما أنت إنا لو ذاقه أصحابتي إذا قالقة وإدين سو قد بيو دقيهنا يا ماهية إلى دقيستا وحنا إلى أركا أصحابتي قالقة حكلو رجينا يا إنا هدي وحا فائدة لي أما خير كتير هدي أد أركتين إنا ضافنين وكفائدة ستين أصحابتي قالقة ما أنت وحا ربينا كهالله لبك المذود روح قلبي سكتيرو حاسب حقد حمان انت بكجرتو والسؤال محو فائدة يا مركو قف للكيس حاسدو اما او عدو كون نقدو ووح ان بدن ان كو اركي بلشده دحديده igu soo laalaabatay oo jecelaystay ina asxaabteeda qaaliga inta itaqaani inta ay aqoonba inaan la wadaago asxaabteeda qaaliga aan jecelaystay inaan la wadaago وشيء أن لا يابي واي قف كولا مدا وحبا أن كديرين أما الدمر أهو أما الرق أهو سيب الدمرك قف أن وح كديرين ما أنت شقي أدي أديك ما شقيني سدقولي قافدسا واحد هذا يهبلو ويش قستاني ما شقستو محي كود عاد كود عاد معقول ما أهن إن أيضا شقصوها شأني أنا شقيه لي واحد تري معقول ما أهن أيضا إني وحول بقصته أنا قاعد قبصن واحد تري معقول ما أهن أيضا إني هير كسر جارتو أنا قاعد جارين وهوش إلها وطو ما أهن مدو قعنتي ذا كشرت أما قعنتي ذا كشرت ما أهن هوش إلها وطو وهو إلها وطو يكوي انتهي وأنا هرت مدس كود آمنتا إنه هوش إلهي وطو قف ولبنا ما أنتو حبيب بيها إلهي سبحانه وتعالى أقري قف ولبا وحي مريسو قف نلشة وحي كل ما ينسانا يسا سيكسيك قف وحي كل ما ينسانا يسا نلشة كالم في عن كقادنا يسا نلشة ميل في عن أي كقادنا يسا صورة قلتين ما أهم أصحابتي دقالقة وشيء إيقيا بشيء إرقاس حاسدك وإيقيا بشيء wuxuu iga yaabiyay inay waxa macna lahayn oo qofka kale u qoori waayo oo asaga ku maqan yahay oo ku mashquulayo miyuusan ogeyn markuu qofkan adoonkiisa kale oo ilaahay abuurtay oo ku mashquulayo miyuusan ogeyn inuu adduunka ka tagayo miyuusan ogeyn in la xisaabinayo miyuusan ogeyn qalbiga xiqdiga iyo xumaanta uu ku haayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caragelinayso miyuusan ogeyn hadduu qof walaalkiisa caloosha wax ugu qaado inay dembi ku tahay waa su'aal wuu ogyahay haddana ma samaynayo iimaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda qaarna uu u dhammaystiray qaarna iimaankooda naaqus uba noqdo shaydaanka ka xoog badiyo iimaankooda naaqus u noqdo asagoo u jeeda shayga inuu qalad yahay ayuu leeyahay sax waayo wuu samaynayaa وكو هلايا أسوأ وجهنا قلبي مرك إله سبحانه وتعالى وحنكر جينا إنه إيمانكنا كامل كدقو قلبي جينا وكسر حقد يحمان ولا في عينها قف ولا الكاجا إن حاسد كن قتد ولا في عينها قف ولا الكاجا إن أغور وسد نلشة وحقبتك واحترك مالك صباحة مجع يا شرفته إن أغور وسد وأرن آد وحواي maxaa yeelay qofkan wuxuu gaaray qofka kale uu gaari karaa maahan inuu iska dhaadhiciyo qofka bini aadanka inuu qalbigiisa iska dhaadhiciyo hebel wuu gaaray meeshaas aniga laakiin ma gaarin see ku dhacday aniga ma gaari karin see ku dhacday hebel waa la jecel yahay dadka dhanaa jecel shaqada laga jecel yahay meel walba laga jecel yahay aniga lama jeclo asaga wax uu gacantiisa ku keensado ma ahan nasiibkiisa noqday adiga nasiibkaaga haduu noqonin sabarkaaga ku helaysaa wax walba waxaad sabar ku weysid kuma helaysid orod iyo xiqdi iyo xumaan iyo xaasidnimo ma ku helaysid wallaahi haddii qalbiga bini aadanka in yar xaasid hadduu galo قصار موجي فائدة ومسهوينس والله
inaan been idin sheegin asxaabteeda qaaliga aan jecelahay inay inala wadaaga jeclaystay bulshada badi ayaan ku dhex arkay xiqdiga xaasinimada qalbiga ku hayaan oo qof walaalkiisa xumaanta u hayo wax u faa'iido u leeyahay mana horta taas inuu xuqdi iyo xumaan qof walaalkiisa u hayo wax u soo kordhinaysana ma lahan meesha uu joogo ama wax uu qabanayo hadduu ka xaasido oo qofkaasi maanta sariir ku aruurana asaga cin uma bedelaysa booska uu shalay joogay qofkaas maxaa yeelay adiga meeshaada taagnaanaysa asagana intuu ilaahay u qoro ayuu sameeyaa maraya adna meesha ilaahay kuu qoraa maraysaa laakiin waa inaa aaminsan tahay waa inaa yaqiinsan tahay rabbigaaga inuu wuxuu kuu qoray aada gafaynin qofaa wuxuu ku leeyahay aniga macquul ma noqon karto qofkan waxba ima dheero inuu meeshaas maro ama waxaa sameeya aniga aana samaynin oo yaa soo xoogay oo qofkan maxaa xaasid ugu tahay qofkan suu u samaystay qofkii maanta dhan hadal hayaa qofkan suu u samaystay waxaan qofkan suu u yeela saas ilaahay in laga cabsado sooma fiicno qof walba 2 mitir iyo karfantii cadeed ayaa ka dambaysa asagoo og hadana ma ku dhaqmaayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga ayaa waafajinta le ilaahu rabbi qeyrkaagana waafaji oo tawfiiqdaadana waafaji ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciddu doon ay waafajiyaa qeyrka marka waxaan rajaynayaa asxaabteeda qaaliga inaad ka faa'iideynaan rajaynayaa erayga xasidka aad ayuu u xun yahay weligiina qalbigiina hadalkayga meel ku xira hadalkayga tijaabiya qalbigiina haddaa shay in yar xumaata cuqdad iyo xumaato iyo ciil aad iska ilaalisid ibni aadanaa la yahay oo waana la ka xanaajinaya oo waana la xumaynayaa 2 beri hal beri haddaad xanaaqaas iyo uurkaaga wasaq ku haysid maan labaadkaygu kuu gaari xitaa saacado gudahood daqiiqado gudahood inaad iskaga masaxdid isku day iska dhaqdid xumaatadii iyo wixii wax kasta ilaahay dartiisa haddaa u tanaasushid ilaahay dartiisa u sabartid qofkan walaalkaaga maanta kaa sareeyo dariiqad walba ha kaaga sareeye markaad aragtid tiraahdid qalbiga ka tiraahdid ilaahu u siiyaaday anigana isii ama heerkiisu kala i gaarsii aad tiraahdid wallaahi waad guulaysanaysaa wallaahi noloshaada cid ma ka hor istaagayso wax walba way kuu hagaagayaan laakiin iska ilaali inaad tiraahdo qofkan alla wanaag badana qofkan alla wax qabsi badana asaga le afiirinaysa asaga le ku maqan tahay isma ogid intaad adoonkan yaa iska leh ilaaha abuurtay inta adoonka ku maqan tahay adna waa lagu maqan yahay ha u malaynin adiga kaamir qarsoona kugu maqan ha u malaynin in adiga aad free tahay oo cid ku ilaalinayso cid kugu maqan aysan jirin ha u malaynin intaad adoonka ilaahay ku maqan tahay xumaantiisa ka shaqaynaysid xaasid ku tahay lugooyihiisa ka shaqaynaysid ciil u qabtid wax qabadkiisa ka ciishoonaysid u farwiiqanaysanaysid dhehaysa see ku dhacday inuu qofkan wax qabsado aniga wax qabsan qofkan inuu magac yeeshto aniga wax yeelan qofkan inuu inta mara aniga marin see ku dhacday intaad leedahay xumaatadaas intay qalbigaada ku jirto adigana kaamir qarsoon kugu socoto kaamir qarsoon aad u jeedan aa lagu daba dhigay runta markii laga hadlo ibni aadan oo wixii muuqdo markiina la hor keeno waxaa laga yaabaa inaan ka cabsano inaan ka xishoono inaan ka gaabsano laga yaabo laakiin wixii qarsoon ma u jeedne saa doona oo hadlaa saa doona aan wax u samaynayaa laakiin ma ilaawe inuu ilaahay subxaana wa tacaala iga dambeeyo oo wax walba aan samaynaayo inuu iga qoraayo khayr iyo shar intaba waxaan samaynayo ilaahay inuu iga qoraayo qofka shartiisa badatana miisaankiisa sharta u badanaya qoftii qeyrkiisa batana miisaankiisa qeyrka u badanaya ilaahay subxaana wa tacaala nagama dhigo ahla shar nagama dhigo ilaahay ha naga dhigo ahla khayr asxaabteeda qaaliga waxaan jeclaystay inaan la wadaago aad ayay ii gubtay wallaahi inaan been idin sheegin walaalo Soomaaliyeed walaalo muslimiina ilaahay dartiisa ay ugu yihiin walaalo bulshada dhexdeeda aan ku arkay erayga xiqdiga qofka aan nolosha loo qoorin farxadiisa iyo waxqabadkiisa loo qoorin lagu maqan yahay laakiin kan ku maqanow ma ilowda inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu maqan yahay waa su'aal ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsidiisa nagu irsaaqo wallaahi wabillahi inaan been idin sheegin asxaabteeda qofkii ilaahay cabsidiisa ku nool wax qalada ma samayn karo maxaa yeelay kaba soo qaadbal aniga ilaahay kuma matalooy laakiin wax yaroo mataala idin soo qaadaya hooyo soo socoto cunug yaraata hooyo soo socoto
oo gurigan wax ka hadlaysa see noqonaysaa waa guriga wuxuu kugu noqonayaa gasac inta lagu guriga lagu daboolo kugu noqonayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ka cabsado oo ilaa xad ka cabsado ilaahay subxaanahu wa tacaala asna wuu la jiraa ma daayaco qaladaadka wadada xun ku socdo meel qaldan hadduu ku dhacayo ilaahay wuu ka leexinayaa maxaa yeelay wuxuu ku nool yahay ilaahay cabsidiis wuxuu ku soo socdaa ilaahay cabsidiis wuxuu ku soo toosaa ilaahay cabsidiis ilaahay cabsidiis ma aha wax yar ma ahan laakiin cabsida laftirkeeda ilaahay inuu ku waafajiyo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku waafajiyo oo cabsidiis kugu beeraya cabsidiisa ku noolaanaysaa dadne lama waafajinba way soo kacayaan way iska hadlayaan waxay doonaan iska sheegayaan way seexanayaan waqtigay doona soo kacayaan muusiga la iska dhageysanaya kaana in la yiri adduunyada waa ku waaraysan camal ee u dhaqmaya maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka asaga iskale cid hanuunin karta ma jirto cid haddii ilaah ku roon yahay oo qasbi karta ma jirto laakiin aad ayay u wanaagsan tahay inaan iswaanino wax isku sheegno ilaahay muxuu yiri xaqa isfara sabarkana iskula dadaarmo soo maaha marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo dad wanaagsan dad markasta isgarab qabto Soomaali weyn meel kasta joogto dad isjecel dad ilaahay dartiisa iskugu xiran dad ilaahay dartiisa isku xariiriyo dad ilaahay dartiisa isku barto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo qalbigeena ilaahay saafi inuu ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala xiqdiga iyo xumaanta inuu ilaahay naga saaro xiqdiga xumaanta xasidka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeena ka saaro xasidna waxa noogu dirisna nooga dhigin maxaa yeelay ereyga xasidka waa wax xun waaye wax fiican ma aha marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin ereyga xasidka erey in ku cusub ma aha inuu qof xasida ama qof noloshiisa liido erey in ku cusub ma aha laakiin waxaan rajaynayaa inay noqoto dardaaran inay noqoto isxasuusin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khayrkana waafajiyo rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu raalli naga noqdo tawfiiqdana waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku jecel yahay nagu daro muuminiintii ambiyadii nebiyadii waddaday mareen inuu ilaahay na marsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala janno firdowsana ilaahay naga waraabiyo adduunya aakhira liibaan waddankeenoo nabada dadkeenoo heshiisa qaluubo wanaagsan qaluubo nabada qaluubo caafimaad qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isku soo celiyo biidni raxmaan asxaabteeda qaaliga waa walaashiina ikraan laki oo idin leh beeshkeyga booqda ikraan laki channel subscribe comment and share walaalihiina kalena xasuusiya khayrka la isla wadaago yaan khayrka la kala qarsanin qof walba fikradiisa wuxuu qabo iyo wixii oo qalbigiisa ku jiro ha la wadaago walaalihiisa yaan la kala qarsanin fikradaha iyo khayrka iyo wanaaga xumaantana ha laga tago qalbigana ha laga dhigo nadiif qalbi wanaagsan qalbi nadiifa ayaan ilaahay ka baryaynaa biidni raxmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر